الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نكالن كهدليا waa Ismaan Cabdi Ducaale oo kamida culimada deegaankan Taleex. Waxaan doonayaa maanta waynu ciidnay inaan warbixin yar oo kooban aan ka bixiyo ciidka inuu maanta ciidnay. Anagu waxaan kamid ahaa dadkii bisha arkay maalintii Khamiista subaxeedii iyadoo waliba bil weyna. waxaan isla qiyaasnay dadkayagii markaa eegayay oo dad badan oo salaada subax ka baxay ah inay bishaasi subaxda Jimcaha ay qoraxda ka soo horeyn doonto oo soo bixi doonto, laakiin aysan muuqanayn. si kastaba ha noqotee waa tii lagu dhawaaqay dalka Soomaaliya xalay goor dambe inay ciid tahay. deegaano badanna laga soo wariyay oo laga soo sheegay. waxaynu cilaaminay ciid inagoo cuskanay culimada muctamidka ee dalkeenu leeyahay, inagoo cuskanay wasaaradaha diinta iyo awqaafta u xilsaaran, inaga oo cuskanay dadkii warbaahinta la soo fadhiisiyay ee sheegayay ama cadeynayay inay bishii arkeen. saasaynu ku cuskanay. waxaynu daliishanay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee nabigu uu ninku u yimi iyadoo ay sooman yihiin oo uu ku yiri bishii waanu aragnay shalay galab. nabiguna asxaabta uu sidaa ku afuriyay. saad daraadeed baynu xalay saqdhexe waxaynu ku dhawaaqnay inay ciid tahay. waxaan doonayaa markaa dadkii ciidka aan ku ciidsiinay inaan warbixin yar oo kooban siiyo. anigu galabta markay qoraxdu sii dhacaysay baan magaalada Taleex ka baxay. waxaana tagay buurta ugu dheer deegaanka kan magaalada ku hareeraysan waliba ogadeeda ama fiiqa u sareeya. halkaas aan salaadii maghrib ku tukaday. waxaan igu kalifay inaan halkaa ku tukado iyadoo mar walba ciidkii waynu tukano waa ku qanacsanayn, laakiin mar walba shaki ama ladh baa jiray soo kacayay oo bisha laga qabay. waxaan cadaynayaa bishii maalintaynu ciidnay intii khaasatan dadkii reer Taleex ee ku ciiday hadalkayga iyo takbiirtayda ama ku ciiday Cismaan baa ciidkii cilaamiyay oo u badan dadka waayeelka aan la socon warbaahinta inaan u sheego oo u cadeeyo. waxaan idinku ciidsiinay wixii Soomaaliya laga sheegay oo Soomaaliya ay ku ciiday. waxaana cadaatay inaysan bishii shalay galab dhalan. bishii shalay galab ma dhalan. anigu galabta dhambuurtaasaan u saaraa. waxaan ka soo degay anigoo aan aragtii galabta dhalan lahayd, tii soo dambuuxada ahayd oo galabta dhalan lahayd anigaan indhahayga saarin baan hadda ka soo degay. waxaan cadaynayaa xaqa ayaa mudan in la dhaho, ilaahay baa mudan in laga boqo, aakhiro ayaa adduunka ka daran. dadkii aniga aragtidayda iyo takbiirtayda ku ciiday oo ictimaaday waxaan doonayaa inaan u sheego maalintaan idin ciisiyay maalin Ramadaana bay ahayd. sidaa inaad ku qanacdaan maalintaasna idinka xil idinla jira haddii aan anigu idin sheegay oo waxa weeye saad yeeli lahaydeen. marka maanta waxay ahayd 30 buuxadii Ramadaan bay ahayd. maalintaana waa inagu leeyahay. ciidkuna muslimiinta waa berito. intaasaan doonayaa inaan idin sheego oo idin gaarsiiyo. waxaana idinku ciidsiiyay wixii la arkay oo Soomaaliya oo dhan ay ku ciiday. xaalkeen waxa urjifooyadii ku gowracan oo Soomaaliya oo dhan baa cilaamisay. muslim Allah xaq sheeg, run sheeg, muslim Allahna uga qaado. taasaan anigu idinku ciidsiiyay. sidaa khilaafkeedana galabta muuqata. waxaan idin sheegayaa maalintaas sidaa yeelahayd iyo qalaheedii baa idinka doonayaa. maantana ciid ma ahayn. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.